بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال ku soo dhawaada barnaamijkan maanta gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa ma dagaal nuclear ayay qarka u saaran yihiin Mareykanka iyo Shiinaha laga soo bilaabo xiisada ka aloosan xeebaha badda Pacifiga ila iyo bariga fog ee Asia saldhigyada military ee Mareykanka halkaasi uu ka samaynayo xiisada Taiwan dhowrtusida military ee Mareykanku la sameeyo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan iyo sidoo kale Philippines intuba waxay si weyn u muujinayaan xaaladda adag ee dhanka diblomaasiyadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Shiinaha dagaalkan haatan bariga dhexe ka socda ee Iran lagu qaadana waxa la sheegayaa qorshuhu inuu yahay in lagu baqna gooyo dhaqaalaha wadanka Shiinaha iyadoo la curyaaminayo shidaalka uu ka helo wadanka Iran oo boqolkiiba 90 shidaalka laga dhoofiyo wadankaasi Shiinaha loo dhoofiyo cudurda military ee Shiinaha ayaa haatan aad u kubcaysa waxaana la leeyahay waxaba suurtagal ah sanadka dambe dagaal inuu dhex bari karo quwadahani iyadoo taana ay sabab u tahay suurtagalnimada Shiinuhu inuu duulaan ku qaado wadanka ama jasiiradda Taiwan ee ka irdhowday Shiinaha haddaba warbixin arrintan la xiriirta oo lagu tilmaamayo sida labadaas dhinac ay u sii saqayaan dagaal nuclear oo dagaalkana uu dhaafo dagaalka ganacsiga ee Washington iyo Beijing ka dhex aloosan ayaynu barnaamijkan ku faahfaahin doonaa iyadoo maalmo kadibna suurtagal ay tahay in wadahadallo ay ku yeeshaan Beijing madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping haddaba maxaa ugu dambeeya amuurtan maxayse tahay sababta loo leeyahay dagaal nuclear oo dhex mari kara Mareykanka iyo Shiinaha ayaa faraha foodooda la isugu taagan yahay xogahaas oo idil ayaynu barnaamijkan ku lafaguray maxamed Cabdi ayaa soo akhriyay warbixin amuurtan ay ka qortay majalada Foreign Affairs ee ka soo baxda wadankaasi Mareykanka maxamed warbixintu maxay ku bilaabanaysaa warbixintu waa cinwaan ay ka dhigaysaa Foreign Affairs Mareykanka iyo Shiinaha ayaa waxay wax waareynayaan masiibo nuclear waxaa caddaatay Shiinaha in uu raadinayo in uu soo afjaro awoodii uu Mareykanku kaligii ku amarka taagleen jiray caalamka iyadoo Mareykanka iyo Ruushkana ay haystaan kayd fara badan oo xagga nuclearka ayaa waxay isku dayayaan in kulligoodba saddexdoodaba Shiinaha ay ku soo biirto ayadana ay hub badan oo nuclear samaysanayso sida laga soo xiganayo sarkaal Mareykan ayaa wuxuu ku qiyaasayaa dowladda Shiinaha in ay saddex laabtay kaydkeeda nuclearka gaar ahaan madaxyada nuclearka waqti cayiman lama sheegin hase ahaatee waxay xoojisay baa leeyahay awoodeeda ay gantaalo nuclear ku ridi karto xagga badda xagga dhulka iyo xagga cirka sidoo kale waxa ay ballaarisay baa leedahay kaabayaasheeda cilmi baarista iyo ka shaqaynta nuclear casri ah waxa ayna urursanaysaa oo ay dhisaysaa madaxyo nuclear ah waxaa jira war ka soo yeeray Shiinaha dhowaan oo arrimaha la xiriira iyo jawaabta Mareykanka muxuu ahaa warkaasi maxayse Mareykanku kaga jawaabeen bisha March bartamaheedii Shiinaha ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ku tala jiraan inay xoojiyaan hubkooda istiraatiijiga ah ee nuclearka ee cabsigelinta ah waxayna dib u xaqiijiyeen inay ka go'an tahay inay xoojiyaan kaydkooda nuclearka marka la fiiriyo xagga tayada iyo xagga tirada dowladda Shiinaha ayaa saddex jibaartay hubkeedii kaydka ahaa gaar ahaan xagga madaxyada nuclearka sidoo kale waxay xoojisay baa leeyahay awoodda ay gantaladaasi nuclearka kaga ridi karto badda cirka iyo dhulka dowladda Mareykanka oo arrintaa ka jawaabaysa ayaa iyadana waxay raadinaysaa inay dardar geliso hubkeeda kaydka halka isku dayaysa inay wada xaajood la gasho xukuumadda Shiinaha oo rabta in ay xadido nuclearkan lagu tartamayo si ballaaranaya marka laga gudbo Mareykanku inuu cadaadis saarayo Shiinaha oo Shiinuhuna si joogta u diidayo inuu wax wada xaajooda oo hubka lagu xakameynayo oo Mareykanka la galo waxayna u muuqataa in uuna Shiinuhu rabin in awoodiisa nuclearka la xanibo waa gartay warbixintan qabiilka qoray muxuu ku sababaynayaa in Shiinuhu u diidan yahay in la xakameeyo awoodiisa nuclearka Tong Shao oo nin ka tirsan maxadka cilmi baarista nabadda ayaa waxa uu sheegayaa sababta ay Shiinaha
ayna oga go'nayn inay xakamayso hubkeeda nuclearka ah in ay sababtu tahay in shiinaha uu aaminsan yahay in awoodda cabsigelinta uu shiinahu leeyahay in la xoojiyo maadaama ay khatar dhici karayso xasiloon darro uu ku samayn karo Maraykanka oo uu xoog u kaashaday ama u kaashan karo ama ugu hanjabi karo waddanka Shiinaha si arrintaasi looga hor istaago Shiinaha danaheeda wax tanaasul ay ka galayso wadaxaajood ma jiro isla waqtigaasna ama isla markaasna talaabooyinka maamulka Maraykanka gaar ahaan markii Donald Trump uu xukun ku soo noqday dowladda Maraykanku waxa ay noqotay mid aad uga taxadiraysa sida ay ula tacaamulayso danaha waddanka Shiinaha oo ay ka mid tahay galka Taiwan sidoo kale waxaa muuqata in ay dowladda Maraykanka aad u danaynayso sidii xiriir xasiloon ay ula lahaan lahayd waddanka Shiinaha hase ahaatee Shiinaha ayaa waxa uu arkaa in talaabooyinka uu Maraykanka qaadayo aynan wax badan ka bedelin siyaasaddiisa uu ku xoojinayo awooddiisa nuclearka sidaa daraaddeed sabab loo joojiyo ama loo bedelo siyaasadda waddanka Shiinaha ee la xiriirta xagga nuclearka ma jirto ayuu khabiirkan leeyahay. waa gartay ma jiraa marka inaba haba yaraatee heshiisyo la doonayo in lagu nooleeyo ama lagu xoojiyo mucaahadooyinkii xakamaynta nuclearka oo Shiinuhu qayb u ka yahay? Shiinaha ayaa dhowr goor ku celceliyey inuunasan ogolayn in wadaxaajood hubka lagu xakameynayo la galo gaar ahaan in barnaamijkiisa nuclearka si furan looga hadlo waxa uuna ku kalsoon yahay marka hore in loo baahan yahay in kalsoonida la dhiso lagu yareysanayo amniga caalamka sida ay dowladda Shiinaha ay u aragto waxayna diiday wadahadaladani in ay horseedi doonaan in dowladda Maraykanku ay niyad jabto sababtoo ah waxa ay rabtaa inay ballaariso barnaamijkeeda nuclearka iyo gantaaladeeda Shiinahana waxa uu rabaa in iskaashi uu la yeesho Ruushka oo galka nuclearka iska kaashadaan intaa waxa dheer in wadamada Yurub ayaga laftirkooda ay la dhacsaneen waxa socda Faransiiska iyo Britain ayaa ayaga laftirkooda bilaabay inay hubkooda nuclearka kaydka ay ayagana ka shaqeeyaan waxaasoo dhan waxay hoos u dhigaysaa fursadaha lagu gaari karo wada hadallo wadamo badan ay ka qayb qaataan oo hubka lagu xakameynayo natiijadana waxay noqonaysaa mid jahawareer badan caalamka mataqaana soo wajahda waxayna xoojinaysaa Shiinaha ra'yigu qabo oo ah waxa waajib ah in la sii wado in la kordhiyo awoodda nuclearka ee waddanka Shiinaha taasoo macnaheedu yahay Shiinaha iyo dowladda Maraykanku waxa ay galayaan tartan aanan hore loo arag oo xagga nuclearka ah taasoo horseedaysa in adduunka laga yaabo in masiibo xagga nuclearka ay ka dhacdo. waa gartay marka arrintaas masiibada ah haddaynu kusii soconno maxaa keeni kara ma tartankaa keeni kara ma xiisad qaraxdaa keeni karta mise heshiis la'aanta Shiinahana uu diidan oo ka mid noqdo? halka caalamka oo dhan hubka nuclearka mataqaanaa isticmaalkiisa ayna ahayn hawl sahlan haddana waxaa jira siyaabo lagu abuuri karo si lagu xadidayo khatarta nuclearka dhalan karta haddii Maraykanka iyo Shiinaha ay labadoodaba dardar geliyaan furfurnaan iyo maangal ah oo gantaalada nuclearka xadigooda lagu gaabinayo iyo in ay isticmaalaan hub nucleara dagaalo goboleedka waxay u badan tahay inay walwalka kordhiso dagaal nuclear ku bilaaban karo labadan dal ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigi karaan khatarta caalamka soo wajahaysa ee tartanka xagga hubka ah Maraykanka iyo Shiinaha ayaa hadda waxa ay galeen tartan xoog leh oo xagga nuclearka ah oo laga yaabo inuu horseedo in caalamka oo dhan uu masiibo nuclear qorto gashto xaqiiqadan waxay tahay Shiinaha hubkiisa nuclearka ama barnaamijkiisa nuclearka waxa weeye mid falcelina weeye markii khatar waddanka Shiinaha soo wajahdo ayuu ku falcelinayaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in dowladda Maraykanka awoodeeda ay sii ballaaranayso xagga nuclearka ah taasoo dhiiri gelinaysa inay ka faa'iideysato waddanka Shiinaha arrimihiisa gudaha sidoo kale ma aha arrintani wax kama isaga dhacaya Shiinaha ayaa waxa uu rabaa inay ka go'naato sidii ku dadgelin lahaa
ballaarinta barnaamijkiisa nukliyeerka wuxuuna soo bilaabay howshaasi horaantii 2021 markii hore oo madaxweyne Trump weerarka siyaasadeed uu ku qaaday wadanka Shiinaha markaasoo cudurka coronaviruska dadka badan laayay oo caalamka ku socday waxaana sii dardargalay walwalka laga qabo arrimaha amniga Shiinaha uu ka qabo xagga Mareykanka. waa gartay waaya dagaalkii Mareykanku uu ku qaaday Iran iyo kii kasii horeeyay ee Venezuela sidee Shiinaha arrintaasi u dareemaya ama u arkaa? Mareykanka weerarka uu qaaday Venezuela iyo Iran sanadkan ayaa u xaqiijinaysa Shiinaha in dowladda Mareykanku ay raadinayso in ay rabto in ay xukuumadaha riddo marka laga gudbo inay ku andacoonayso in arrinta cagsigeeda ay ka shaqeynayso nabad iyo ammaan ka shaqeynayso qaar badan oo dadka istiraatiijiyada u qaabilsan wadanka Shiinaha ayaa waxay aaminsan yihiin dowladda Mareykanka faragelinta ay dalalka ku hayso inay ku tiirsan tahay cadowgeeda oo tabardaran natiijadana waxa ay ku timid baa leeyahay qaar badan oo Shiinaha khabiiradeeda kamid ayaa sii wada in awoodda militariga la kordhiyo lana gaarsiiyo xaddi amniga qaranka lagu sugi karo waxaa hubaal la'aan ka jirtaa qorshayaasha wadanka Shiinaha waxaana ay sii kordhinaysaa walwalka Mareykanka xaggiisa ka haysata asna dhanka Shiinaha ayaa hadda waxa uu sameynayaa hub aad u badan u baaxad badan awood u leh inay madaxyo nukliyeer qaadaan iyo hubka kale caadiga ah iyo gantaalada loo yaqaano D iyo gantaalka plastikada guuxa ka dheereeya F-26 la yiraahdo waxaasoo dhan waxay gaari karaan badda Asia Pacific Shiinahana ma rabo in uu daboolka qaado si dadban uga hadlo awoodiisa waxaasoo dhanna waxa ay abuurayaan ku talagalka ah inuu hub nukliyeer u isticmaalo ayaa khabiirka hadal ku dhigaya. waa gartay qobarada marka Mareykanka sidee arrintan u arkaan mise dhici karaa in dagaal uu qarxo iyadoo xagga Shiinaha arrintan ay noqon kartaa mid awoodiisa ku xoojinayo Mareykanku ma u arkaya qatartaas inay tahay mid lama huraan ah? khabiirada Mareykanka ayaa intooda badan qiyaasaya Shiinaha inay u tixgelinayso gantaalada nukliyeerka ee Shiinaha haysta inta badan inay horseedi doonaan in qiimeyn lagu sameeyo marka la fiiriyo awood goboleedka iyo diyaar garowgooda waxayna rabtaa in ay xoojiso awoodeeda arrintaasna waxa ay dhalisay walwal laga qabo Shiinaha inuu hub nukliyeer isticmaalo gobolka colaadda marka hore ka dilaacda marka laga gudbo walwalkaas dowladda Mareykanka ayaa weli waxa ay u hanqaltaagaysaa ma aha kaliya inay dagaal nukliyeer bilowdo waxay rabtaa in ay ka hortagto sida hadalka loo dhigay qatarta ka soo foodla wadanka Shiinaha hubka nukliyeerka ah cidda hor isticmaalaysa iyo qaabka ku talagalka ah ee khatarta ka dhalan karta ma aha wax sii socon kara oo la isku halayn karo dowladda Mareykankana waxaad moodaa hadda in hubkeeda caadiga ahaa ay muddada badan ka shaqeynaysay laga yaabo inay hadda difaac u isticmaasho iyadii saaxiibadeeda dowladda Mareykanka ma haysato sabab ay khatar ugu riixdo wadanka Shiinaha xilliga hadda la joogo oo hubkiisa nukliyeerka ay yihiin kuwa casri ah Shiinahana mar hore ayuu gantaaladiisa fogaanta dhow ah casriyeeyey nishaabkoodana waa sugan yahay ciidanka nukliyeerka ee wadanka Shiinaha taana waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan ee wadanka Shiinaha siinaysaa oo ay kamid tahay in nukliyeerka ay gobolka isticmaali karaan uu Shiinaha madaxda ka yahay sahaatee ciidamada xoreynta Shiinaha oo ayaa waxa la leeyahay dowladda Mareykanka ayaa waxay u arkaan inay guulo badan ka soo hoysay dadaalka ay rabto in ay awoodeeda nukliyeer ku kordhiso waxayna ku riixday wadanka Shiinaha asaga laftirkiisa in uu casriyeeyo caqiidadii nukliyeerkana uu isbedel ku sameeyo si uu oola jaan qaado awoodda wadanka Mareykanka heer kastoo ay gaarsiisan tahay ama haddii uu dagaal dhaco. waa gartay waaya gabagabadii markaa maxamed maxaa marka lagu tilmaamay halka haddii xaaladdu halkaas taagan tahay sidee xaaladdan markaasi si caqli gal ah loo isticmaali karaa inaysan dhibaato imaanin oo warbixinta lagu soo gabagabeynaya
khiyaaraadka ugu xigmada badan ee maraykanka uu qaadan karo ayaa lagu sheegayaa inuu wadanka shiinaha ka weeciyo tartanka xagga hubka nuclearka ah oo khatar weyn keeni kara oo awoodana inta badan la saaro in laga fogaado tartanka xagga hubka nuclearka ah. dowladda maraykanku uma muuqato inay xoojin karayso hubkeeda nuclearka ah iyada oo shaki weyn ku jiro, maxaa yeelay waxa ay si taxadar leh u akhrinaysaa afkaarta wadanka shiinaha oo tilmaamaya dowladda maraykanka hubkeeda nuclearka in uu weli yahay mid shiinaha lagu khalkhalgelin karo, iyadoo maraykanku hadda uu ku dhaqaaqayo inuu xoojiyo hubkiisa nuclearka ayaa macnaheedu wuxuu yahay in uu rabo inuu hoos u dhigo kharashka xagga dhaqaalaha ah ee lagu isticmaalayo hubka nuclearka samayntiisa, iyadoo hadda lagu jiro hubkii caadiga ah ee maraykanka ee colaadda uu ku geli lahaa oo sii gabagaba noqonaya. dowladda maraykanka iyo shiinahana si olakaca ayay khiyaaraadkooda u xadideen oo hubkooda nuclearka iyo howlgaladooda siyaasadeed iyo istaraatiijiga danahooda istaraatiijiga ayagoo eeganaya ayaa waxay rabaan in awoodooda iyo xasiloonida caalamka in ay ilaaliyaan. maraykankana hadda waxaad moodaa baryahan dambe in uu dareemayo in awooddii uu caalamku lahaan jiray inay sii gurayso. waa hagaag maxamed waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.